ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo howlgallo baaritaan goordhow ka sameeyay magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay 4 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo ka howlanaa aasinta miilooyinka lagu aaso markaas wadada dhexdeeda. ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo markaas adeegsanaya mukhaabaraadka iyo sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa 4 nin gacanta ku dhigay isla markaana waxa ay ciidamada saraakiisha ay sheegeen in markaas ay sharciga ay horgeeni doonaan 4 dhagar qabe oo gacanta lagu dhigay goordhow. ciidamada nisa ayaa howlgallo kala duwan ka sameeya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waxaana badanaa ay ku soo qabtaan dhagar qabeyaal fara badan oo ku fogan in markaas ay dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed oo markaas si nabadaas kaga barisanaya waxaana inta badan ay qarxiyada iyo miilooyinka ay ku aasaan wadada dhexdeeda waxaana had iyo jeer soo sheega shacabka Soomaaliyeed ay ka foojigan dhagaraha markaas ay Al-Shabaab ay u maleegayaan ummadda Soomaaliyeed waxaana had iyo jeer arrintaas fashiliya isla markaana ka hortaga ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed wixii wara ku soo kordha daawadayaal halkan ayaan kala socodsiin doonaa fadlan page-kana ku cusub tahay si follow gare siina share gare asxaabtada la wadaag sidoo kale waxaa soo subscribe loo saartaan YouTube-keena dhambalka dunida iyo bartana TikTok meel kasta oo joogtaan aad iyo mahadsantiin daawaday